waxaan ka sheekaynayaa waxbarashada caqabadaha jira hablaha caqabadaha ka haysta waxbarashada waayadii horena ka haysan jiray iminkana way jiraan marka la eego caqabadaha in laga saaraa loo baahan yahay waxbarashada oo hablaha fursadooda waxbarasho la siiyo inan hibo la yiraahdaan idinka sheekaynaya sheeka la yiraahdo abiidso oo cadaadi baan islahaaye ma cilmi barbaan islahaa isla ku qoobaysay bal hadee ina yar baa jirtay oo habboon baa la oran jiray abeed Xuseen baa la oran jiray Xuseen laba ooriyood buu lahaa habboon hooyadeed way dhimatay ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo ooridii kale uu keenay oorida kale inan bay dhashay inanta ilwaad bay ula baxday aad bay u jeceshahay labada hablood waa isleeyihiin iyo ilwaad iyo habboon dabadeedna ilwaad waxba uma dirto habboon be abiidsa istiraada dabadeedna shaqo walba way u dirtaa wax kasta waa reermi wax waraqato dabadeedna sida haanta loo sameeyo sida madaxda loo soo diro sida hararka loo sameeyo shaqo kasta sida reerka loo dhaqo sida caruurta loo xanaaneeyo wax kasta waxay bartaa habboon qabo waxaas iyadoo ugu daraysa tontooma iyo ugu daraysa ilwaadna halka iska daaway tiraada iska fiirso isma oga inay cilmi baraysa abiidso oo cadaadi bay isleedahay inantaaduna ha raaxaysato labadii hablood baa gashaantiya noqday dabadeedna ilaahay alafkoodii buu keenayo habboon baa la horguursaday habboon baa reerkay gashay ku baraaray saashaga kasta saasay u taqaanaa wax kasta alaabtii bay samaynaysaa qal Soomaaligi bal hadee xoolii bay raacaysaa xanaanaynaysa kala taqaana soo hoynaysa soo dabaalaysa caruurtii xanaanaynaysa waa lagu baraaray markaas reerkii oo dhan berigii hore waxa loo degi jiray dhowrkii qoysba muxuu ahaayay ayay xiran jireen markaas diir baaba lagu soo wareejin jiray dholalka imanka mooyide jeeskan iyo reer iska guuraya markii hore way iska yaraan noloshan dambe olaadaha badan baad keentay dabadeedna waa lagu baraaray tii kale la guursaday war maxaa qabsaday toddobaadkii u horeeyayba reerkii gacantu ka taagay war maxay ahayd tani dab geli kari mayso cunto kari mayso xoolihii ma kala taqaano haddii loo diray magacyadoodii iyo maxaygoodii tiradoodii markay soo hoynayso kala garan mayso bar baa maqan gebigoodii malaa saddex meeloodow meel bay wadaa warna uma hayso waa la yaabay oo maalintii dambaa la yidhi war bal waxaraha loo diro waxari baa loo diray oo barqadii diga halkan oo la gubay bay waxari intay saa u yaaceen ku soo noqdeen mise lixda waxaradoo yaryar oo xoolahoo aad u dhalay dhammaan digadii bay dhex galeen oo lugii bay ka wada huruushoodeen saasay isugu soo kabay tii baa la arkay mise bismillaah reerkii baa wixii waxaara kori lahaa da'dan dhashay deyrtan dhashay halkaasay ku baabeen dabeedna waxaa la yidhi waxba ha u dirina aakhirkii waxay noqotay inantii in reerkeedii lagu soo celiyo jidhkeedii dee baali basari areebo maryihii loo geliyey haantay lushay caanihii subagii wixiiba maradeedii buu ku daatay hagaajin male wareer waxaa la yidhi tan inta la kaxeeyo gurigii ha la dulgeeyo wakaa reerkiinii orodoo dhigaraan dabadeedna waa loo keenay hooyadeed markay aragtay tii kalena warkiisoo haysaa tan loo keenay ayay murara dilaacday haweenkii baa soo booqday dariska markaasaa la yidhi nayaahe inantii habboon waxay ku dambaysay soo ma ogid haa waxaasoo cilmiga adaa bareeya maxaa tan u hagratay markaasay tiri allah cabiidsaan islahaa oo cadaadiye ma cilmi barbaan islahaa waxaan uga dan leenahay waar hablaha waxbarashada ha lala ogaado waxaan goobjoog u ahaa inan yaroo waxbarashada dee waa tanoo wiilashaa la jecel yahay in la aado in wax la baro 3 wiil iyo 2 gabdhood buu dhalay dabadeedna 3 wiil buu waxbarasho u diray labadii gabdhood mid baa yar midna way runta waxbarashada waa mid dood meeran oo hadal meeran karti badan oo dee firfircoon oo inay maskaxina soo wado wanaagsan ku jirto way iska muuqataa sida najmo iyo hiba iyo aynu arkaynay in aqli badan ku duugan yahay waayahay way la dooday aabaheed waalidkeed bay la dooday waxay tidhi
nafara dambiga dhunta loogu habaa marka ay hirqataa dhibti ay ka hadhaa hadduu ooma garaadku hadduu ooma garaadku haraduu ka cabaa hilinkee u maraa baladee hablaha iyo wiilasha hor alle ma sintaano gabdhaha waad hagrataan hayinbaad ka dhigtaan hee alla iska rartaaye hiba weeye aqoontii halligeeyo iskuulkay tegi baladee iyadii baa doodaysa afkeedii bay ku doodaysa waa yeelkiina hagaaye kol hadduu hiiwaaliyo uu hawaawi ku jeedo waa yacnaa qaad iyo fadhi ku dirir iyo waxyaabaha ku maqan yahay waa yeelkiina hagaaye kol hadduu hiiwaaliyo uu hawaawi ku jeedo inta aan haladaadka dhashu aanay habaabin gaar ahaan hablihii rajadoodu xumaan hilaaca biliglaa hiyigaygu jiraayo hobashaa curataan halka ay ku da'ayso haqabeel ku hubaaye hiba weeye aqoontii hallaygeeya bay tiri tacliinta aakhirkii inantaa waxbarashadii waalidkii markay de iyadaa garnaqsanaysee waa la geeyey waxbarashadii saasay ku heshay nasiibkeeda kuwa aan doodayn baa jira markaa hadday rajo tahay hadday aqoon tahay hadday tahay iminkana markii la barakacay waxaa la ogaaday hablaha iyo wiilasha ninkii inan waxbaray dee guulaysay ama inani meel u tagtay ee u dhooftay ee uxuso kii shan lahaa sidii shantii muxuu ahaaye laba ninoo reer miyaba midna shan wiil dhalay midna hal gabadh dhalay dabadeedna halka gabadh Nairobi baa lagu qabaa kana shantiisa wiilba Nairobi bay jiraan dabadeedna way israacay waa berigii hore xagga loo muxuu ahaaye loo la aadi jiray Nairobi isla iyo markay asaasinaysay dabadeedna dhaxdo intii la marayay kii shanta wiil dhalay yiraahdo waa adiga maxaa kuwada aad u socotaa de gabadh baa halka iga joogta gabadh baa intaaso wada u soo martay oo maad iska joogtay aad jooga laga qaatay kan way iska aamusay la shan aniga shan bay ga horeeyo shan wiil jaamacada ku jiro nina daran sugaal nin la yiraahdo haye kani waa iska aamusa Nairobi baa la tagay masaajid bay ku degeenoo kii gabadha dhalay baa markiiba muxuu ahay gabadhii iyo ninkeedii oo gaari wata yimi meeyay abahay waa kan markaasuu sidaa ugu soo booday ninkii gabadha inantiisa qabay markaasaa gaari lagu qaatay xufkii kale lama dareemin markaasuu sidaas u weegay shimcihii dambaa la gaadho kii oo xaragoonayo dhar loo soo iibiyo shoppingkood yaabayso saa xashaashaya oo muxuu ahay la socdo ninkii inantiisa qabay oo la socdo ay soo galeen masaajidkii kiyo gidaarkii masaajidka saa u jiifo isku duuba ayuu yiri waariyaa maxaa meesha ku dhimay shantii wiil markaasuu yiri warniyo shan lahayn mituuga oo ugu yar kaasa laba casho markuu iga maarada mar wixii keeno isna dib u maarko wixii kale aad sheegay markaasuu ma shantii wiil baa caynka